asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay walaalahaygaan jeclahay adduunka meel walbaad ka joogtaan. video maalin horeeta aan soo geliyay oo cuntooyinka caruurta aan uga hadlayay ayaa aada waxaa laysoo weydiiyey waxa yaroo cadka oo aan marinayo barbarooniga. marka waa kana dhowr nuuc ayaa jiro sawirada saad arkaysaan waan idin soo saaray. waa cheese ama farmaajo saad u taqaanaan oo jilcan waaye. waxaan isticmaalaa inta badan kan plainka ah, yacni mid aanan dhadhan lahayn oo hadhow waxaa rabtid adiga ayaa dhadhan u yeelan karta. maasha allah wuu macyahay, caruurtan aad ayay uga helaan. waxaana inta badan aan ku siiyaa barbarooniga ayaan ku siiyaa. sababta barbarooni gaduud aan u siinayo ayaan jeclaysanay videogan in aan idinla wadaago. barbarooniga gaduudka maasha allah fitamiino badan, nafaqo badan ayaa ku jiro oo aad iyo aad yacni caruurta markay korayaan jirkooda yacni muhiim ay tahay. waxaa kamid ah hadda vitamin c-ga loo yaqaano aad iyo aad ayay u badan tahay. liinta ama oranjiga saad u taqaanaan vitamin c badan ayay leedahay ayaa la dhahaa. qofka markuu warwareerayo asiga ayaa la siiyaa, laakiin waxaa kasii badan barbarooniga gaduudka fitamiinka ku jiro ayaa kasii badan. maasha allah daawo camal ayuu u dhigmaa, aad iyo aad ayuu maxay ahayd fitamiin badan ayuu ku jiraa. caruurta siiya haddii adiga yacni aad isku arkaysid warwareer, daal ama maxay ahayd fitamiin la-aan aad isku arkaysid, barbarooniga gaduudka aad ayuu ku caawinayaa. inta aad rabtid ayaad ka cuni kartaa. waxay kaloo kaa caawinaysaa barbarooniga gaduudan birtaada ama feerada haday jirkaada ay ku yartahay. caruurta jirkooda haday ku yartahay kor ayay usoo qaadaysaa maadaama c fitamiin badan laga helo. vitamin c-ga waxaa laga helaa inta badan waxaa waaye birta ama feerada saad u taqaanaan. dumar uur leh hadday idinku jiraan, haddii aad nuujinaysaan, intaasi fitamiinadaas yacni haweenka aad iyo aad ay yacni muhiim u tahay. marka waad isticmaali kartaan maalintii xabad barbarooni aad ku cuntid ayaa kugu filan, ka badan haddaa awoodid maasha allah. marka caruurta siiya fitamiin fiican ayay leedahay. anigana waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago. waxaa laga yaabaa yacni caruurta inaysan kaa qaadanaynin, laakiin wax markaad u mariso ama dhadhan kale aad u yeesho maasha allah way qaadanayaan. aniga waan tijaabiyey, caruurteedana maasha allah aad ayay uga heleen. idinka inaad soo tijaabisaan ayaan rajeynayaa maadaama uu yahay nafaqo aad iyo aad u fiican. waxaan kaloo idinla wadaagayaa karootadaasaan ognahana aad iyo aad ayay nafaqo u leedahay. waxaa jiro qudaar badan oo yacni waxaa jirto markii la kariyay markii ceyriin ay tahay yacni ay kala nafaqo fiican tahay. barbarooniga hadda waan kasoo wada hadalnay, waxay nafaqo fiican tahay markii ceyriinkiisa iyo lagu cuno oo yacni dib aanan la saarin. karootada ayadana maasha allah haddii aan idinka waramo nafaqo badan ayay leedahay. karootada markii la kariyo ayay kasii nafaqo fiican tahay markii aysaan ceyriin ay tahay. marka waxaan idinla wadaagayaa sir yar oo caruurta karoota aad ku siin kartaan ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago. halkan waxaan kusoo diyaarsaday canab iyo karoota ayaan kusoo diyaarsaday. caruurta mar walbo haddii aad rabtaan yacni fruutooyinka oo kale markaad siinaysaan oo aad rabtaan qudaar inay idinku cunaan, mar walba waxaa sameynaysaan shay ay jecel yihiin iyo midka aad rabtid oo kale inaad bartid ayaad iskugu daraysaa. hadda waa kana canabkii ayaan u jarjarayaa caruurta, canab iyo karooto ayaan maxayna isla siinayaa. waxaa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idinla wadaago sababtaan canabka aan u jarayo ayaan idin sheegayaa. aad iyo aad ayay yacni muhiim u tahay. wiilkayga yar wuu yaryahay, waxaan u sameeyaa canabka waad aragteen 4 mar ayaan maxay jarayaa, waan yaryareynayaa. sababtaan u sameynayn waxaa waaye ilmo yaryar waaye, wax walba ayaa dhici kara. lacalla haddii yacni cunugii oo ku sixdo ama dhuunta ay ugu dhegto dhubkan markii loo jaro cunugii meel uu ka neefsado ayuu helayaa. laakiin haddii warwareeg aad u jirtid meesha dhan ayay fadhiisanaysaa dhuuntii, cunuga yacni naqaska inuu ku dhig ayaa laga yaabaa. markaad gabadheeda roon oo kale waad arkaysaan 2 mar kaliya ayaan u jeexayaa, dheer waaye. laakiin wiilka maadaama uu yaryahay 4 mar ayaan ugu dhigayaa. marka canabka ilmaha u jarjara aad ayay yacni muhiim u tahay. ilmo waaye way ordayiin, way ciyaarayiin, way ku faayiin, inay ku sixdaan ama dhuunta ugu dhigan ayaa macquul ah. haddana canabka saad u jeedaan yacni waa wax yaroo maxay ahayd kuul camal ayuu u egyahay. marka ilmaha u jarjara si ay yacni naqaskoo kale aysan ugu dhigin, oo haddii xitaa cunugii uu dhaqso u laqo ama uu la kufo ama uu dhaco kala waxaa maxay ahayd meel uu ka neefsado ayuu helayaa. marka waxaa la diidaa wax yacni dhuunta oo qataarayo oo cunugii naqaska ku dhigayo ayaa la diidayaa. marka waa kana mar walba canabka sidan ayaan u jarjaraa. cunuguu ka yaryahay waanaad u yaraysaa. marka maasha allah hadda canabkii aan soo dhameynaa. markaan soo dhameyno karootadii ayaa inoo bilaabayaa. karootada waatana waan soo fiiqay, waan soo dhaqay.
sir kale ayaan idinla wadaagayaa. Karootada ilmaha markii loo jarjaro way adag tahay. Karootada yacni waqti ayay qaadanaysaa in la cuno, in la calaajiyo. Marka wax kale ayaan soo tijaabiyey oo aniga aad iyo aad ii cajabisay. Waxaad soo qaadanaysaa kan baradhada lagu fiiqo. Baradhada markii lagu fiiqo qobka kore dhan waa ka fiiqay, haddana waa sii fiiqayaa. Fiino caata ayay igu soo baxayeen. Cunugana wuu cuni karaa, dhadhan yaroo macni way u yeelaysaa. Inaad arkaysin ayaan rajeynayaa. Sidaan ayaan rabaa in ay karootada igu soo baxdo. Sidaan ayaan ku jira aan u hoolayaa, yani waa fiiqayaa. Karootada inaan fiiqayo camal ayaan iska dhigaa. Maqaarkii kore dhan waa fiiqay, waa soo dhaqay, laakiin saan ayaan u yaryareynayaa. Cunugana karootadii wuu kaa qaadanayaa. Wax badan oo maanta dhan calaaji yani oo calaanjinayo ama soo tufayna ma lahan. Karootada maadaama ay adag tahay, ilmaha inta badan ma jecla. Cunto markii lagu kariyana waan arkay ma jecla. Maraq oo karooto iyo waxaa jirto aan ka sameeyo misir aan ka sameyn ayaan idinla wadaagi doonaa. Ilmaha aragtidooda iyo xuntoo kale aad iyo aad ayay u caawinaysaa. Karootada ku dadaala. Nafaqo badan iyo fitamiino badan ayay leedahay maasha Allah. Halkaani kuma soo koobi karo nafaqadeeda. Vitamin C wuu ku jiraa, A ayaa ku jiro, B ayaa ku jiro, lagama sheekeyn karo. Maqaarka ayay qurxisaa, jirka ayay qurxisaa karootada. Karootada waxaa ku jirto maado oo loogu talagalay yani stresska in ay yareyso. Haddii aad tahay qof mashquul badan oo stress badan dareemayo, maalintiiba xabad karooto cun ama karooto juice oo kale ku shiido. Aad iyo aad ayay ku caawinaysaa. Karootada waxay kale ka hortagtaa maxay ahayd xanuunka ku dhaco indhaha ayay ka hortagtaa. Yar walaaweyn aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. Way fitamiino badan tahay. Maraqyaal ayaan ka sameeyaa karootada. Karootada markii la kariyo iyo markii ay ceyriin tahay waan idin sheegay. Waxay kasii nafaqo badan tahay markii la kariyo. Marka asigana insha Allah waan idinla wadaagi doonaa. Caruurta mar walba aad rabtaan yani inaad qudaar oo kale aad bartaan, fruit ay jecel yihiin oo kale la sii. Hal saxan yani karooto kaliya meel ha u soo saarin. Cunugii waqti ayay ku qaadanaysaa in ay la qabsadaan, in ay wixii ay cunaan waqti ayay ku qaadanaysaa. Marka laba shay oo kale ma aragtay laba camal uga dhig. Karooto iyo shay kaleeto meesha u soo saar si ay labadaba yani iskugu dhadhamiyaan oo dhahdid kan hadda waa dhamaysan balkan kale iyo dhadhami. Marka walaalayaal ku dadaal insha Allah. Aad iyo aad ayay muhiim u tahay. insha Allah videogan aad ka faa'iidaysateen ayaan rajeynaya walaalahayga. Qudaar badanna waan soo wadaa aan idin sharxi doono iyo faa'iidooyinkooda iyo sidaan aniga aan u isticmaalo. Videoga hataa ka heshayna like iyo subscribe iyo comment iyo share intaba noo sameey. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.